waxaanu ku bilaabaynaa Kenya iyo Soomaaliya oo ku dhawaad 10 sano uu ka dhex taagnaa muran dhinaca xadka badda ah oo labada wadanba ay markaasi ku guuldareysteen in ay heshiis ka gaaraan dhexdooda ayaa iminka waxa muranku ka taagan yahay xagasha dhulka ee markaasi xadka loo jeexayo dhinaca badda gudaheeda. Soomaaliya waxa ay doonaysaa sida qariidadan ka muuqata xagasha dhinaca xariijintaasi ayay Soomaaliya doonaysaa halka Kenyana ay doonayso in qaabkaasi loo dhigo ama loo weeciyo. waxaana taasi ay muran gelisay dhul baaxadiisu ay gaarayso 100,000 oo kiiloomitir oo ah dhulkan oo markaasi laba jibaaran. haddaba waraysi gaar ah oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Monica Juma aanu kula yeelanay halkan xarunta BBC da maanta ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay ku degdegtay go'aanka in ay maxkamadda ICJ ay aado oo kiiska iyadoo aan fiirin wadooyinka kale u furnaa markaasi si xal loogu gaaro muranka. waxaana ay tiri If you have been following this case, you will know that we had a preliminary objection to the ICJ listening. haddii aad la socotay kiiskan waxaanu soo jeedinay inaanay maxkamadda ICJ dhagaysanin waayo xeerka ICJ waxa uu dhigayaa waa in labada dhinacba kiiskooda ay soo gudbiyaan. waxaanu aaminsanahay inaanay sharciyad u lahayn kiiskan inay xukunto waayo weli maanu marin jidadkii kale ee furaa si loo xaliyo khilaafkan. Soomaaliya iyadoon cid kaleba la hadal ayay markiiba maxkamad tagtay oo ah halkii ugu dambeysay. ma aaminsan inay tani u keenayso xal waara mushkiladan. waxaa jirta sheeko la isugu sheekeeyo oo ah in Soomaaliya ay kiis adag leedahay. annagu taa ma qabno, kiis dhan walba ka adag ayaanu haysanaa. ma rabase inaan ka hordhaco waxa ay maxkamaddu oran doonto. Very strong case both in terms of precedents and in terms of practice in international law. But I do not want to predetermine what the court will say. dhinaca kale haddaba maadaama Kenya ay ciidamo ka joogaan maamulka Jubbaland mar wax laga weydiiyay wasiirka in uu jiro walaac ku saabsan in faragelin ay ku sameeyaan doorashada dhawaan la qabanaya ee Jubbaland. waxay sheegtay in markaasi Kenya marnaba aanay faragelin doorashooyin ka dhacaya dal kale. sidoo kale waxa wax laga weydiiyay mowqifka dawladda Kenya ee ku aadan jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. waxaana ay tiri Kenya's position on the status of Somaliland. mowqifka Kenya ee Somaliland waxa uu la mid yahay kan midowga Afrika. waana ixtiraamsanahay xuduudaha Afrika sida ku xusan go'aankii midowga Afrika ee 1964. dana ayaan ka leenahay dalal badan. ka hor inta aysan dal noqon Suudaanta Koonfureed wakiilo ayaa Kenya u joogay. dal caynkaas ah ayaan nahay. dalal badan ayaan wakiilo ku leenahay. taasi ma waxay ka dhigan tahay waa inaan la macaamilin dadka? waa la macaamilaynaa. Does that mean that we should not engage with people? We do. wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayay ahayd.